ballan weeye Kenyaan cashir baa u dhigaya baryo badan daraadeed burbur waan ku seexdo cabsi uu igu beeree farqo way iftiintee baraaru ka baxaya dhulka uu banaystaa beedkiisa moodana isagoo bahdilan barqa dheer ka baxaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Maalim. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda hadda sida tooska iga daawanayaan barteeda YouTube-ka ee Maan Official iyo sidoo kale barteeda Facebook ee Cabdiraxmaan Xuseen. halkani maanta waxaan rabaa inaan idiin soo mariyo tix yar oo gabaya aan ugu talagalay difaacitaanka badda Soomaaliyeed maadaama ay tahay shay muqaddas ah oo marnaba aan laga tanaasuli karin. gabaygaas oo aan ugu talagalay intii karaankayga ah inaan ku difaaco codkaygana aan ku biiriyo difaacitaanka badda Soomaaliyeed. gabaygaas haddaba wuxuu u dhacayaa sida tan: badahay ma baayaco suuqyada ma baashiro bari iyo galbeed iyo hadda buuro lama karo damciyaha badaydan beerka ka goono inta aan bidhaansado bogga ayaan ka jarayaa hadduu ruux bilaash heli jiray mahdi baan u dirayaa qareenada badaydiyo caddaymay la baxayaan hadduu bilo dib ii dhigay maantaan isbarayaa rag wuu soo bisleen jiray maantuu ka baqayaa. ballan weeye Kenyaan cashir baa u dhigaya baryo badan daraadeed burbur waan ku seexdo cabsi uu igu beeree farqo way iftiintee baraaru ka baxaya dhulka uu banaystaa beedkiisa moodana isagoo bahdilan barqa dheer ka baxaya hadalkayga beeniyo muuhan bilaashe Kenya isbaraya nin badayda baayacay annagu ibeecshee siyaasiga bahdilan iyo cadowga isbaraya inaan power leeyahay baan duni u sheegaya Soomaalo baraarto quwadeeda gorgor baa dad baraya boqorkiina uume bashar naga sameeyaan u bandhigan xogtaydo bareediisaan qiraya in la soo badbaadsho badda aan difaacnaan boqorka tuuge mawlow badeena dhow. daawadayaal sida aan wada ognahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ maalinta talaadada ay ku beegan tahay 12 Oktoobar kama dambeys inay soo saarayso dacwadii kala dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya. haddaba waxaan leenahay meel walba oo Soomaali joogto guusha anaka ayna raacaysaa insha Allah xaqane wuu soo bixi doonaa balse waxaan leeyahay Kenya damaca ku jiro inta qof Soomaali uu ka nool yahay dunida taako Soomaali ay leedahay damac yuusan ka keenin mar dambo. waxaan ognahay maalmahan in ay Kenya xuduudaha ay keentay ciidan balse waxaan leenahay ciidan waxuna uma qaadi kartid gorgor iyo haramacad ayaa ku joogo oo saarkii xuduudaha kaaga soo ceerinayo tii u dambeysay ee balad xaawo oo saarkii gaariga xataa lagu soo qabsaday taakada Soomaaliya damciisa haddana maxkamadda ka soo celisay. waxaan wada sugnaa daawadayaasha iyo anakabo waa maxkamadda go'aanka ka soo baxa insha Allah. Soomaaliya waxaan rajeynayaa guul Soomaaliya ha noolaato. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان يبيع ما نقر الخيغنا باب ما قرر بطيغنا إيب معها